السلام عليكم. maanta waxaan idin tusi doonaa isbeddelka weyn ee ku imaaday xayeysiinta Facebook. Shirkadda Meta ayaa si rasmi ah u ogolaatay in kalood lagu xiri karo Ads Manager-ka. Kadibna uu ku sameyn karo inuu report ama analyze ku sameeyo xayeysiintaada ama inuu create gareeyo xayeysiin cusub ama inuu ku sameeyo inuu ka joojiyo ama tala ka siiyo xayeysiimaha ku socdo. haddaba maanta waxaan isla baran doonaa sidee ayaa la iskugu xiraa cloud iyo Facebook. ugu horreyn waxaa u baahan tahay inaad soo diyaarisid cloud. haddii uu yahay mid free ah aad ayuu u kooban yahay awooddaada ama isticmaalkaaga qaabka aad u isticmaali doontid. okay waxaan isla tegi doonaa qaybta loo yaqaano setting-ka and then waxaan ka tegi doonaa connectionska. halkan markaa imaano ayaa waxaa kaaga soo bixi doono waxa la dhahayo connection. okay marka waxa ka saacidayo inaad isku xirtid Facebook Ads Manager-kaaga iyo cloud ayaa waxa loo yaqaanaa MCP ama Model Context Protocol oo awood u siinayo inuu wax akhriyo, edit gareeyo ama uu maaragtay wax ka bedelo. okay so marka browse ma dhihayno oo si directly ah Facebook uu ma jiro. haddii aad browse dhehayso waxaa u baahanaysaa Ziver ama maaragtay supermarkets ama another plugin kaleeto in aad ku connect gareyso. okay marka anaga waxaan dhahaynaa add custom ayaa dhahaynaa. magac ayaa u bixinaysaa Meta MCP oo kale. okay halkan ayaa waxaad gelinaysaa marka URL kaas oo ah https mcp.facebook.com/ads. okay and then halaas marka aad sameyso ad ayaa leedahay. ad marka dhahno halkan ayuu wareegsanmayaa. Facebook ayuu wuxuu ku dhahaa ina ku connect gareyso. connect ina ku dhufano. okay waxa ku dhufaneena connect waxa soo kacaya Facebook-gaaga. waxa halkaas kaaga soo baxaya Facebook oo ku kacsan wuxuu ku leeyahay connect cloud to Ads oo ah MCP server. okay waxaa leenahay continue. okay maxaa dhahaynaa marka output all current and add pages ma fiican mase output into current page only. okay marka wax walbo xataa imaado oo in the future ayaa ka dhiganayna xitaa page cusub ama add cusub haddii future-ka connect gareeno si oo noogu ogolaado. okay continue ayaan leenahay. halkaas waxaa imaanaynaa meesha waxaa ka soo baxaya marka waxyaabaha la manage gareenayo. okay dhammaan manage marka dhammaan tig ay ku saaran yihiin. kadib waxaa leenahay save. okay cloud has been connected to the MCP server. hadda marka waxaa isku xiran oo tilaabteena koowaad si aan u sameyno xayeysiin anagoo isticmaalayna cloud waa in aan isku xirnaa Facebook iyo cloud. okay sida aad uga jeedid shaashada waxaad hadda joognaa cloud-keena ayaan joognaa. waxaan ka joognaa qaybta connection-ka. waxaan halkan uga jeedaa waa all wixii aan ku connect gareeno oo u bixinay Meta MCP. okay qaybta koowaad marka hadda sida u jeedid waa read only. waxyaabahaas ayuu akhrin karaa. add account inuu akhriyo qaybtaas waa read ayaa loo yaqaanaa. qaybtan kaleetana waa delete iyo write inuu wax delete gareyn karo ama wax qori karo. okay qaybtaas kalena waa other tools. marka hadda kulli approval oo ka rabaa waxaa dhihi kartaa always allow. waxaa dhihi kartaa hadda read-ko kale waxaa sii karnaa. okay qaybta read-ko kale waxaa siinaynaa always allow inuu wax soo akhrin karo. laakiin inuu wax delete gareeyo ama wax qoro approval ay nooga baahan tahay. okay kan kaleetana approval ayaan siinaynaa si uu wax u delete gareeyo ama wax u qoro approval ayuu nooga baahan yahay. laakiin inuu wax soo akhriyo oo Facebook-geena tago waa u ogolnahay. waxaan ku soo laabanaynaa cloud-keena. waxaa leenahay tusaale waxaan weydiinaynaa please check oo kale. tusaale saas oo kale dhahnay. okay yes I have found wuxuu soo helay 13 ad account oo maaragtay Meta business portfolio-yaasha ku sameysan sida halkaas ugu jeedid. wuxuu noo soo qoray marka dhammaan ad account-yada oo access-ka u haysto. okay
marka tusaale waxaan dhahay midka ku qoran Cabdicasiis Amjad they analyze or make me report. Okay, tusaale waxaan dhahay dhammaan they report iga sameey xayeysiimihii wuxuu tagaa marka campaign level data du tagaa. Okay, wuxuu dhahay marka I will take okay wuxuu dhahay 276 ayaa ku baxday markii la sameeyay. Okay, wuxuuna siin karaa marka mid kasto midkaan salis inuu ahaa $134 xayeysiin ku baxday. Keligtiisii maaragtay CTR kii maaragtay resultii. Okay, midkaan active ah maaragtay lead waaye lacagta ku baxday inta kili gareysay all marka jartii ku sameeyna jartigan waxa dhihi kartaa as PDF iga dhigo kaleeto waxa dhaheena tusaale labada xayeysiin active ka ah kadibna waxaan siisaa advice waxa ka bedelayno kale. Hadda marka waa wax akhris waaye waxa awoodaa marka inaad dhahdo create a campaign waxa ay sameeysaa xayeysiin waxa rabaa inaad target gareeyo tusaale meeshas camal marka uu ku diyaarinaa marka xayeysiinta marka uu diyaarinaayo cloud boss asoo diyaarinaa waxa dhihi kartaa isticmaalka creativity-ga oo uu dambeeyo page-ka ku jiro kale marka mar walbo aad wax oo create gareenayo wuxuu ka cunaa waxa la dhahayo maaragtay credit badana baxaya meeshaas ma fahantay mo credit oo ka cuni doona laakiin waxyaabaha yar marka wax weydiinaysid credit badan ma kaaga baahan ama token badan ma guwaayo. Okay, wuxuu dhahaa tusaale you have to waxa haysataa laba active ads midkaan marka waxa ku baxday lacagtaas ku baxday. Okay, this has by the largest impression volume of anything your account and GBP conversion it is clearly winner waaye. midkaan labaadna waxa dhahay okay marka wuxuu dhahaa my advice is scale the winning and don't split focus and you over scaling. Okay, marka waxa soo akhri marka waxa dhigi kartaa waxa ay sameeysaa campaign cusub waxa ii diyaarisaa campaign cusub. Okay, tusaale Soomaaliya ra kula sheekeysanay waxaad ii create gareysaa campaign cusub oo aan ugu talagalay inaan ku target gareeyo tusaale ganacsiyada oo maaragtay real estate ka u baahan in loo sameeyo Google Ads ka si ay u helaan maaragtay lead ama maaragtay dad oo iibsado dhulkooda ama gurigooda. waxa ii create gareynaysaa ii sameeyaa dhahay waxaan rabaa video ad inuu noqdo $20 maalintii ayaa rabaa ka hor inta aadan sameynin halkan igu wadaag. Okay, maadaama ii create garey aad dhahay maaragtay horta ko wuxuuna siinaa maaragtay sheekadii ad set target keena location keena ina siinaa optimization goal keena ina siinaa budget keena maaragtay message keena maaragtay wuxuuna siinaa CTR keena. So marka English marka ku weydiisid ayuu si fiican warbixin ka fiican warbixinta Soomaali marka ku siinayo mar walba waxa fiican inaad English ku weydiisid si maaragtay oo aad u si fahmo. Okay, waxaan daa video aniga soo gelinayo laakiin inta kale tii sameey lead form from Facebook. hadda wuxuu weydiiyay WhatsApp ma ka dhigaa wuxuu ka dhigaa weydiiyay marka aan waxa dhahay lead form oo Facebook ka dhigo kale. So marka hadda xayeysiinta ay ku sameeynayaa aqbal leadka waxa tusaale marka aqbal ku dhaha marka always ina dhahdo waxa ka fiican low ones hadda midka hadda kaliya ina oo galaatid. Wow, sida halkan uga jeedid wuxuu ina dhahay campaign-kii waa la abuuray wuxuu sameeyay campaign-kii oo $20 maalintii ah targetka uu yahay Nairobi maaragtay objective-kan uu yahay lead generation wuxuu dhahay waxa ka dhigay creative waxa kaliya ka dhiman creativity ama muuqaalka hadii muuqaalka aan sii lahaynayne ama muuqaal link hadii aan siina xataa uu soo gelin karaa maaragtay wuxuu kaloo dhahay primary text qoraal marabtaa inaan ku qoro mise qoraal gaar ah ayaad isticmaali doontaa mina primary text ku sameeyna hadda dhahna primary text ii sameey oo noo sameyn doona kaliya headline ki primary text bis ayaa ka dhiman wuxuu kaloo dhahay lead form question
marabta standard magaca numberka iyo waxyaabaha lead form kan uu nasi weydiiyay sida hadda u jeedid marka wuxuu dhahay waxa la abuuray campaign-ka oo post ah marka Claude markuu campaign ku abuurayo wuxuu ku abuuraa qaab loo yaqaan post oo macnaha active ma naqanayo campaign-ka magaciisa wuxuu dhahay real estate Nairobi lead generation video ay u baxshay numberkiisa waa kaasa adset ku abuurayna waxa waa Nairobi real estate lead form okay marka aad soo gelisid videoga waxaan dhameystiri doonaa adka oo waxaan ku ogeysiin doonaa ka hor inta aanan active gareynin okay aan soo hubino oo aan tagna ads manager-keena sida hadda halkan ugu jeedid ads manager-ka hadii markaas aad si u hubiso waxa sameynaysaa refresh ayaa leedahay marka hadda halkaas waxa ku qoran real estate Nairobi Somali lead generation so marka edit hadii aan dhahno waxa arkaynaa okay halkan marka wuxuu sameeyay waa campaign as adset budget oo qaatay campaign budget moosan qaadan hadda waxaan joognaa ads manager-keena kan anaga waxaan ma create gareynin waxaan noo sameeyay AI waxaan noo sameeyay Claude so marka Claude wuu ku sameyn karaa Google Ads wuu ku sameyn karaa Facebook Ads adoona aqoon badan laheenin ama at least wax un ka taqaano si aad maaragtay u dhameystirtid ayuu ku caawin karaa so marka hadda halkaas wuxuu noo sameeyay qaybtii campaign-ka qaybtan waa adset level-ka hadda marka wuxuu naga rabaa inaan ku soo darno creativity ayaa naga dhiman oo anaga muuqaal ma aan haysan website ayuu doortay maaragtay number of lead ku doortay okay hadda sida hadda u jeedid waa kaas asiga doortay age-kii iyo maaragtay demography iyo waxyaabo badan oo ku soo daray maaragtay waxyaabo badan oo halkan ku soo daray okay sida u jeedid marka wuxuu inoo sameeyay xayeysiintii maadaama wax kaliya tijaabo ee naga aheeday maaragtay wax yar oo aan isdhihi karno waa loo baahan maadaama tijaabo aheeday qayb yar ayaa ka tijaabinay soo marka hadda ad creativity-ga naftirkeeda waa noo diyaariyay kaliya waxa u baahan tahay in video-ga aad soo gelisid asigana video-ga linkiga siin kartaa ama waxa dhigi kartaa meesha ku jira video-ga asaga ku soo gelinayo marka badanaa qaybta inuu xayeysiin ku create gare inaad u isticmaasho waxa ka advantage badan ama ka faa'iido badan inaad u isticmaasho qaybaha kale inuu ku analyze gareeyo inuu ku soo saaro inuu chart ku sameeyo in uu ku caawiyo in kii qaldan uu ka istaajiyo in maaragtay optimizing oo kugu sameeyo in audience-ga kula bedelo macnaha inuu noqdo qof kuu shaqeeyo shaqada kuu wado hadii ay noqoto inuu kula optimize gareeyo shaqadii uu kula caawiyo waxyaabaha muhiimka ahna oo ka caawiyo markii la isticmaalayo Claude MCP-ga waxa aad u fiican qaybta loo yaqaan analyzing iyo report-ka iyo inuu optimization kula sameeyo laakiin create in la create gareeyo adiga ina create gareysid laakiin asiga oo qaybaha dhan ka caawiyo waxaan rajeynayaa in muuqaalka wax uu ka caawiyay hadii aad jecleysatay muuqaalada nooca inaan soo badino commentiga ku soo qor muuqaalka xiga aad jeclaan laheeday inaan cashir ka soo sameeyno ku soo biir channel-keena Cabdicasiis Amjad waxaan rajeynayaa wax inuu kugu caawin doono channel-keena